1926 markii Talyaanigu intaan ku guuleystay Boqor Cismaan buu tagay hubka dhig baa la yiri Boqor Cismaanna ma waa taariikh qoran waxa kan ma aha wax taariikhda lagama been sheegi karo Boqor Cismaanna hubka dhig baa la yiri raggiisii buu u yeeray wuxuu yiri ma dagaalanaa mase waanu isdhiibnaa noobir meesha la dhahaa muddo 2 bilo la fadhiyay oo u dhaxaysa isku shuban iyo xaafuun qabaa'ilkii ma jarteen oo dhan buu u yeeray halkaas lagu shiray gunaanadkii waxay ku soo gabagabowday aan dagaalano nin la yiraahdo Faratol Yusuf Sharmarke baa fadhigii markii lagu kala kacayay faras uu leeyahay oo xubbi la yiraahdo iyo hoggaankiisii qabsaday gabay qurux badan buu tiriyo faraskiisii ku hal qabsanayo wuxuu yiri tan iyo ximirkii dayreed waxaan xagada ku daajay xaanxaantintii waxaan fardaha kaaga xira dhaafshay waxaan qoofalka kuugu xiray xarabad weeyaan xubbiyay rag la isugu xotomi laba xiniyoode nin xishoonaya waa kanoo xiray bilaawaha ninkan xuural cayn doonahayn xawda hawbaqo xaarxaaro cali bay dagaal kaga xumeeyeen isaga intuusan xarbiyin xoray salabkii annagu xaadiriin baynu nahay xumiya khayraade inaynaan xamaaliin gelayn gaalahays xuliso gabaygaasuu ninkaasi halkaa ka tiriyey dagaalkii halkaa ka dhacay wuxuu socday sanad iyo 6 bilood ninka hogaaminayay xirsi boqor buu ahaa cadde muuse Puntland odaga u noqday awoowihiis aakhirkii Talyaanigii wuxuu yeelay wuxuu keenay maraakiib madaafiic waaweyn sida magaalooyinkii bari iyo doonyaha xeebaha u yiil oo dhan buu dhulka dhigay min Bayla xaafuun Gardafuy Beergaal Qandala Boosaaso magaalooyinka mid walba iyadoo gubanaysa sawiradeedii arkiibiyooyinka waad ka helaysaa inta waxa uu heliyay ciidan xoog badan oo dhulka abuu ku soo daay sheeko qurux badan oo buu ka akhriyay baa jidda sheekadaasi waxay leedahay wiil dhalin yar oo la soo qabtay baa waxa la hor keenay sarkaal Talyaaniga sarkaalkii baa wuxuu yiri nin yahow sababta aad u diideen inaan idin maamulo maxay tahay buu yiri maanta magaalooyinkiina iyo dhan waa baaba doonyihiina mid kama noola xaasaskiina iyo caruurtiina wixii haray gaajay u liitaan maxay tahay soo idin ma fiicnaan lahayn adigii waa kan rafaad iyo basaas baa ka muuqda waad xirxiran tahay soo idin ma wanaagsanaan lahaydeen inaad isdhiibtaan oo tartiib guryihiina ku jirdaan anna aan dusha idin ka maamulo wuxuu yiri dhageyso ayeeyaday baan waxaan ka maqlay buu yiri sheeka sagaaro iyo wan baa sheekaystay Soomaalidu waxay yaab ku leeyihiin xooluhu ma hadlaan sheekada iyaga sameynaya laakiin xigmad bay ku dhisantay nin baa buug ka qoray cadaana sheekooyinkaas oo Soomaalidu sameeyaan wuxuu yiri xayawaanku ma hal quraanya waxay tiri baad maqlaysaa quraanyada warkeeda ma yan maqal buu yiri laakiin waxaad fahmaysaa dadka iyaga xigmadda Ilaahay ku abuuray maalinu hadlayo wuxuu yiri maroodiba waxa la yiri maroodiyow waadiga intaas cararayo duurka ku orday marka qof aragtide maad wixii kula hadlaba haraati ku dhufat adduunka wax ka xog weyn ma jire markaasuu wuxuu yiri hadii marooda hadlay wuxuu yiri waxa la yiraahdaa intaad dhaqan tahay yaa la dhowrsada intaad laga tahay xoogan weyn haddaan nin walba isku taago soo baabi'i maayo saasi uga jeeda hadda wiilkan sheekada ay ayeeyo uga sheekaysay waa saas oo kale sagaaro iyo wan baa wada hadlay wankii baa wuxuu yiri sagaaroy waadiga weyda iyo caatada iyo dhibaatada ku sugane rafaadka ka muuqda basaaska anigu wuxuu yiri adigu qof marka aragtidba waa caradha aniga meeshii biyale waa la isahmiya meeshii baadle waa la isahmiya dhulwaayada waa la iga ceyliya barwaaqadaas iga muuqata iyo quruxda cadaanta baridaas aan leeyahay ma timaadido ila noolaatid hal lagu sahmiyo meel kasta markaasay waxay tiri intii biyaha iyo baadka la sahmin lahaa
ruwaayadana layga celin lahaa maalintii la ii baahdo midi lay saari lahaa duurkaasaa lay qaatay ninkii sarkaalkii talyaaniga ahaa wiilkaa yarka xigmadiisii buu la yaabay wallaahi buug buu ku qoray sheekadii buug baan ka akhri dhacdooyinkaas baa ka dambeeyay gadoodka ah bishii December 1927 baa calankii talyaaniga magaalada isku shuban la suray maalinta iyada waxay ahayd dhul Soomaaliyeed leedahay meeshii u dambeysay oo calan la suro halkaas